Somaliland in la ictiraafo ama la aqoonsado. William Hague wuxuu sidoo kale fariin ka wadaa boqortooyada Ingiriiska ee Rosario Ingiriiska oo gabi ahaanba aqbalay waliba u ololeeyay aqoonsiga Somaliland sanadkii 2012 madaxda Afrika oo dhan ayaa meesha fadhiso oo ayagana wada aqbalay in ay saxiixaan warqadaas aqoonsiga Somaliland inay go'do. Fiiri anagu waxba kama ogin intaas. Ra'iisul wasaarihii hore ee Turkiga ninkan wajigiisa u jeedaan ee loo yaqaan Ahmed ayaa arrimo badan oo la xiriira ictiraafka aqoonsiga Somaliland iyo arrimo kale oo la xiriira Soomaaliya ka shifay wax anaga naga qarsanaa ee aanan ogeyn. Shaqadan waxay bilaabanaysaa sanadkii 2012 Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa madaxweyne ka ahaa Somaliland. Qisada marka adiga waxyaabo muuqaalkiisa aad u dheer yahay waxyaabo ka hadlaa waxa kamid ah sababta Soomaaliya oo galeen iyo dagaalka saddexaad ee adduunka oo Turkiga uu leeyahay wuba dhacayaaba marka ay xirasho iyo saldhigan balaan Soomaaliya waxa markii laga soo tago qaybta ugu xisaab badan waxay tahay habeenada kamid ah ayaa waxa la isugu yimid meel qol ah waa London halka waxa fadhiya ninka la yiraahdo William Hague wasiirka hore ee arrimaha dibadda ee Britishka William Hague wuxuu wadaa warqad ictiraaf Somaliland in la ictiraafo ama la aqoonsado. William Hague wuxuu sidoo kale fariin ka wadaa boqortooyada Ingiriiska ee Rosario Ingiriiska oo gabi ahaanba aqbalay waliba u ololeeyay aqoonsiga Somaliland sanadkii 2012 madaxda Afrika oo dhan ayaa meesha fadhiso oo ayagana wada aqbalay in ay saxiixaan warqadaas aqoonsiga Somaliland inay go'do. Fiiri anagu waxba kama ogin intaas. Ra'iisul wasaarihii hore ee Turkiga ninkan wajigiisa u jeedaan ee loo yaqaan Ahmed ayaa arrimo badan oo la xiriira ictiraafka aqoonsiga Somaliland iyo arrimo kale oo la xiriira Soomaaliya ka shifay